kulanti haboon idil ahaantiinba daawadayaal kusoo dhawaada wararkii caalamka iyo alool media. qodobadaanu maanta idiin hayno waxaa ka mid ah haddii allah awoodda la idmo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo go'aansaday in awood military wax lagaga qabto maamulka Tigray. madaxweynaha muddada dheer ee dalka Uganda oo fanaan xilka ku haystay xabsiga u taxaabay iyo Faransiiska oo shaaciyay sharciyo muslimiinta ka dhan ah. taariikhdu waa 4 Oktoobar 2020. daawadayaal kusoo dhawaada alool media. fanaanka caanka ah ee dalka Uganda haddana ah siyaasiga xukuumadda talada haysa khatarta geliyay Bobi Wine ayaa dowladda Uganda xabsiga u taxaabtay muddo saacado ah. dowladda madaxweyne Yoweri Museveni ayaa talaabadan qaaday kadib markii heesaagu shaaciyay in uu u taagan yahay jagada madaxweynaha doorashada dhici doonta 2021. taageerayaasha Bobi Wine ayaa sheegay in si xun loo jirdilay markii magaalada laga dhex qabtay. fanaanka oo xidhnaa saacado ayaa markii la soo daayay warbaahinta khadka telefoonka kula hadlay wuxuuna sheegay in si xun loola dhaqmay, bergamaha lagaga garaacay, dhingad bir ah dhabarka lagaga garaacay iyo weliba in sunta dadka kaga ilmaysiisa lagu buufiyey. wuxuuna sheegay in dhib kasta iyo xanuun kasta oo la mariyo aanu marnaba ka tanaasuli doonin hadafkiisa siyaasadda. madaxweyne Yoweri Museveni oo ah ka ugu muddada dheer madaxweynayaashii soo maray dalka Uganda ayaa godka ula dhaadhaca wixii ku soo doonta kursiga madaxweynaha Patrick Umeri oo isaguna sheegay in uu xilkaas u tartami doono sanadka soo socda. ayaa toddobaadkan hortiisa booliiska Kampala kabaha kaga saareen magaalada Kampala bartamaheeda isagoo sheegay in uu gurigiisa u socday in ka badan 5 kilomitir isagoo aan sidan wax kaba ah. xariga Bobi Wine oo naanistiisu tahay ghetto president ama madaxweynaha danyarta ayaa sababay in jaamacadda Kampala isku dhac weyn ku dhex maro booliiska iyo taageerayaashiisa oo u badan dad dhalinyaro ah. heesaha uu qaado iyo da'diisa oo aad u yar marka la barbar dhigo ta madaxweynaha ayaa uu ku kasbaday taageerayaal badan oo warwargeliyey ama ku abuuray madaxweynaha keligii taliya ah. wahagaag weli waxaynu ku guda jirnaa wararkii caalamka. ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa amray in ciidamada federaalka Itoobiya khasab kula soo noqdaan maamulka gobolka Tigray. talaabadan ayaa ka timi markii saldhig ay ciidamada federaalku ku lahaayeen gobolkaas weerar lagu soo qaaday habeenkii xalayto. wuxuuna ra-iisul wasaaruhu ku eedeeyay weerarkaas in ay ka dambeeyeen madaxda xisbiga TPLF oo ah ka laga leeyahay gobolka Tigray. ra-iisul wasaaruhu muusii faahfaahin weerarka iyo wixii khasaare ee ka dhashay, balse muddooyinka dambe waxaa sii kordhaya khilaafaadka u dhexeeya maamulka Tigray iyo dowladda federaalka Itoobiya. ra-iisul wasaaraha ayaa barta uu ku leeyahay baraha bulshada sida Twitterka iyo Facebooka ku qoray ciidamada difaaca ayaa lagu amray in ay waajibkooda ka gutaan xaalad taagan. waxaa la dhaafay xadkii u dambeeyey, haddana waa waajib in ciidan wax lagaga qabto sidii loo ilaalin lahaa sharafta ciidanka iyo amniga dadka. isniintii lasoo dhaafay ayaa madaxweynaha Tigray Depression Gabriel Michael ayaa TV-ga Tigray u sheegay in dowladda federaalku ay soo weerarayaan si ay uga aargoostaan buu yidhi dadka Tigray kadib doorashadii ay qabsadeen oo aan dowladda dhexe ka raali ahayn. xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy ayaa culays ka dareemaysa dhinacyo badan, waxaana jira in eedo badani uga soo hoyanayaan in ay xidhxidho kuwii ay iyadu soo deysay iyo in ay xidho cid kasta oo kasoo horjeeda mabaadi'deeda iyo talooyinkeeda. waxaa sidoo kale sii badanaya dadka waxhaysatada ama maalqabayaasha Itoobiya oo iyagu isku dalka uga baxaya. taasina waxay ka hor imanaysaa hadafkii Abiy Ahmed in uu dalka ugu yeedho qurba joogta iyo dadkii waagii hore iskood iskaga tegay iyo kuwii dowladaha hore ay ka mustaafiriyeen, isagoo ugu baaqaya in uu dhisayo Itoobiya la wada leeyahay. hadda dadkii hore uu ugu yeedhay ayaa sida wararku sheegayaan qaar la xidhiidha qaarna dalka ay iskood uga baxayaan. haddana waxaynu soo gaadhnay qodobadii wararkan u dambeeyey. wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Gerard Damier ayaa jaray ka soo baxa dalka Faransiiska wuxuu ugu sheegay in dowladda uu ka tirsan yahay soo wada sharciyo ka dhan ah dadka islaamka xag jirka. sharciyadan oo aanu wasiirku faahfaahin ayuu mid ka mid ah tusaale u soo qaatay, wuxuuna sheegay in dadka muslimiintu ay ku khasbanaan doonaan in ay aqbalaan in ay arkaan dhakhtar aan la jinsiyad ahayn. tusaale ahaan haddaad gabar tahay oo uu nin dhakhtar ah kugu soo baxo ma odhan kartid iga bedela buu. sidoo kale haddii aad nin tahay ma odhan kartid gabadha iga bedela.
dadka falkaas sameeya waxaa lagu ciqaabi doonaa ayuu yidhi xadhig 5 sannadood ah iyo ganaax 75,000 oo euro. dalka faransiiska oo ay ku nool yihiin malaayiin muslimiin ah ayaa dowladda iyo dadkaas ay kala haysata caqabad ay dowladdu dabada ka riixayso. hay-adda xuquuqul insaanka ayaa sheegay in sharcigan yahay mid aan ku habboonayn, waxaana dhici doonta in maxkamad lala tiigsado sida ay sheegeen. dowladda madaxweyne Macron ayaa muddooyinkan dambe hadalhayn ka dhalisay aflagaado madaxweynaha laftigiisu uu u geystay diinta islaamka. sidoo kale dowladaha muslimiinta ayaa sida Turkiga, Pakistan, Kuwait, Bangladesh, Malaysia, Soomaaliya iyo kuwo kale si adag uga jawaabay aflagaadadaas. dowladda Turkiga ayaa iyagu sheegay in ay bixin doonaan lacagta muslimiinta Faransiisku ay ku maxkamadeen doonaan dowladda Faransiiska si ayay sheegeen xuquuqdooda ay ula soo noqdaan. waa hagaag daawadayaal, wararkii caalamka waa naga intaas. inta kulanka xiga aynu ku kulmi doono gebi ahaanba waxaanu idinkaga tegaynaa amaanaal.